daawada ku soo dhawow barnaamijka Top 10 dunida. Mar haddaan idiin soo gudbiyay 10 wadan ee ugu faqiirsan caalamka, waxa iga sugtaaba waa 10 wadan ee ugu taajirsan ama ugu qanisan dunida sanadkan 2018. Waxa idiin soo gudbin doona 10 wadan ee ugu taajirsan caalamka sanadkan. Waxaan ku qiimeyn doonaa waxa loo yaqaano GDP ama Gross Domestic Production oo ah wax soo saarka wadanka oo loo qeybiyay population-ka ama bulshada wadanka. Aan ku bilowno wadanka koowaad ee ku jira kaalinta koowaad ee wadamada ugu taajirsan caalamka. Kaalinta koowaad ee 10 wadan ugu taajirsan dunida waxa ku jira wadanka la yiraahdo Luxembourg. GDP-ga wadanka Luxembourg waa $103,199. Kaalinta labaad wadamada ugu taajirsan dunida waxa ku jira wadanka Switzerland. GDP-ga wadanka Switzerland waa $79,242. Kaalinta saddexaad wadamada ugu taajirsan dunida waxa ku jira wadanka Norway. GDP-ga wadanka Norway waa $7,392. Kaalinta afraad wadamada ugu taajirsan caalamka waxa ku jira wadanka Ireland. GDP-ga wadanka Ireland waa $62,562. Kaalinta shanaad wadamada ugu taajirsan caalamka waxa ku jira wadanka Qatar. GDP-ga wadanka Qatar waa $6,787. Kaalinta lixaad wadamada ugu taajirsan caalamka waxa ku jira wadanka Iceland. GDP-ga wadanka Iceland waa $59,629. Kaalinta toddobaad wadamada ugu taajirsan caalamka waxa ku jira wadanka Mareykanka ama United States. GDP-ga wadanka Mareykanka waa $57,436. Kaalinta sideedaad wadamada ugu taajirsan caalamka waxa ku jira wadanka Denmark. GDP-ga wadanka Denmark waa $53,744. wadamada ugu taajirsan dunida kaalinta sagaalaad waxa ku jira wadanka Singapore. GDP-ga wadanka Singapore waa $52,961. Kaalinta tobanaad ee ugu dambaysa wadamada ugu taajirsan dunida waxa ku jira wadanka Australia. GDP-ga wadanka Australia waa $51,850. 10 wadan ee ugu taajirsan caalamka sanadkan waa inaga intaa.